Jean Paul Sartre wuxuu dhashay 21 Juun 1905 magaalada Paris. Sidaas wuxuu ku noqday ilmaha kaliya waalidkii dhaleen markii aabbahay dhintay isagoo 2 sano jir ah. Wuxuu ahaa faylasuf, ruwaayad yaqaan, qoraa, siyaasi, taariikhyahan, suugaandhaadhi Faransiis ah, kuna guulaystay abaalmarinta Nobel Prize. Xikmadihiisii waxaa ka mid ahaa sidoo kale marka maalqabeennadu dagaal galaan waxaa dhinta masaakiinta. Erey kastaa wuxuu leeyahay cawaaqib, aamusnaan kastaana sidoo kale. Waxa ugu xun in been laguu sheego waa ogaanshiyaha inaad u qalmin runta. Si aad u ogaato waxay nolosha ku fadhido waa inaad marmar halis gelisaa. Xorriyaddu waa waxa lagugu sameeyey. Ma waxaad u malaynaysaa inaan tiriyo maalmaha? Waxa hadhay maalin keliya oo had iyo jeer ka bilaabmata waa beriga kuna dhammaata cadceedda. Noloshu waxay ka bilaabmataa dhanka kale quusta.